caawa suurtageliyey inaan halkan isugu imaanno. waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada xafladdan weyn. waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo ka soo qayb galay munaasabaddan weyn oo aan u dabaaldegayno 26 juun. waa 59 guuradii ka soo wareegtay maalintii ugu horreysay oo dhul Soomaaliyeed oo hora calan Soomaaliyeed uu ka babado oo laga taago. waa maalintii halgankii dheeraa oo dhibka loo soo maray laga mari dhaliyey oo Allah u naxariistee Cabdullaahi Suldaan Timcadde oo qiiraysan erayadiisii wadaniyada ku dheehnayd taariikhdana gashay uu ku yiri sarreeyo ma nusqaamo aan siduu yahay eegno ee kaana siib kana saar. calanka Soomaaliyeed goobtii u horreysay ee laga taagay waxay ahayd beertii xorriyadda ee magaalada Hargeysa, taasoo qof walba oo Soomaaliyeed shucuurtiisa iyo dareenkiisa ay taabatay. halgankii gumaysidiidka iyo Soomaalnimo wuxuu ahaa mid ka soo bilowday gobollada waqooyi, inkastoo gobollada koonfureed naftigoodu ay aad ula dagaaleen Talyaaniga. waxaa hogaaminayay dhaqdhaqaaqaas waqooyi ka bilowday Allah u naxariistee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. halgankaas gumaysidiidka ah waxaa halkaas ka sii waday ururkii SYL ay hogaaminayeen 13 dhalinyaro oo noqday kacdoonkii wada gaaray Soomaali oo dhan. sidoo kale halgankii gobonnimadoonka Soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ee Ingiriisku gumaysan jiray waxaa ka kacay oo horkacayay ururo la yiraahdo National United Front, United Somali Party iyo Somali National League. Soomaalida waqooyi waxay ahaayeen kuwii ka diiday taladii gumaysiga Ingiriiska inaysan la midoobin koonfurta Soomaaliyeed, ayna diideen inay gooni u istaagaan oo ay Soomaali la lahaadaan dowlad qura. waxay ahaayeen kuwii awooddoodu iyo halabuurkooda u isticmaalay baahinta iyo faafinta dareenka wadaniyadda Soomaali oo qura, Soomaali oo qable, Soomaali oo ku wada nool hal dowlad iyo hal calan. waxaa xusid mudan in suugaantii Soomaalinimada iyo wadaniyadda abuurtay ay ka timid badankooda abwaanadii ka soo jeeday gobollada waqooyi. abwaanadaasi waxay ku reebeen ummadda Soomaaliyeed dareen wadaniyad iyo wadan jaceyl, iyo ilaa maanta ay ku abuuran tahay dadka Soomaaliyeed qulubtooda. waxaa la soo maray duruufo adag oo aad iyo aad u adag oo lumiyey hankii iyo himiladii ummadda Soomaaliyeed ku taaminaysay xilligii gobonnimadoonka la ahaa. nasiib darro duruufahaas Soomaali oo dhan ku dhacay ay keentay qabjab iyo in la quursado dadkeenna meel walba ay joogaan, bacdamaa aan kala qaybsanaanay. haddii markii ay dadka waqooyi ay hormood u ahaayeen dareenka gobonnimadoonka iyo wadaniyadda, waxaan hadda ugu baaqayaa inay hormood ka noqdaan midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya si aan caqligeenna iyo cududeenna iyo hadafkeenna u mideenno, kana shaqayno mustaqbalka ubadkeenna iyo maslaxadda dadkeenna iyo dalkeenna. waxaan ummadda Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in dowladdan ay ku hoolan tahay soo celinta sharafta iyo karaamada dadkeenna ee ay hore u lahaan jireen, iyo buuxinta kaalintii Soomaaliya ay ku lahayd beesha caalamka. si taas loo horgeliyo, Soomaaliya waa inay noqoto dal nabada, ku guulaysata midnimo, kuna tallaabsata horumar. sidaas darteed midnimo, wadajir iyo cududeenna aan isu geyno ayaan kaga gudbi karnaa tartanka ka socda adduunka ee ah dhanka horumarka ama siyaasadda iyo dhaqaalaha. tartankaas cusub
lama jaan qaadi karno haddii aynan u midoobin, haddii ummadda Soomaaliyeed aysan u midoobin, awooddoodana aysan isu keenin. si taas loo gaaro waxaan mar kale ugu baaqayaa ama aan ku baaqayaa in wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland aan dardargelino. waxaan ku soconnaa muddo 30 sano ah hadda oo ummadda Soomaaliyeed uu waqti badan ka lumay, gaar ahaan dhalinyarada. waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaaltinimo leh wada hadalkii hakadka galay halkiisii laga sii wado, la isxog waraysto, la daaweeyo nabarradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray. waxay dowladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Somaliland, oo looga bogsiin karo dareenkooda si wada jir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay. ummadda Soomaaliyeed ma kala maaranto. waxaan dhalinyarada leeyahay ayagaa iska leh mustaqbalka. waa inay bilaabaan dood cilmiyeedyo lagu falanqeynayo mustaqbalka Soomaaliya ee qarnigan 21aadka ah ee aan ku jirno, iyo sidii aan uga habsaannay caalamka intiisa kale. maanta waxaan u dabaaldegaynaa waa sharaftii, qiimihii, qabkii dadkii gobollada waqooyi ee calankii ka taagay beertii xorriyadda ee Hargeysa, iyo dowladdii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed ee u keeneen inay noqoto ummadda jirta oo caalamka aanu ku leenahay sharaf. waxaan u hambalyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dadaalkii iyo halgankii la soo maray. ma doonayno inuu meel dhexe ku lumo. dad badan ayaa u dhintay, dad badan ayaa u lumiyey hantidoodii, dad badan yaa mustaqbalkoodii ku lumiyey inay Soomaaliya ay midowdo. maanta taariikhda noqonaysa waxa qof walba oo Soomaaliyeed ha joogo waqooyi ama ha joogo koonfur ay ka qabtaan midnimada iyo wadajirka ummadeenna. waxaan hubaa in kala qaybsanaan inaysan siinayn sharaf iyo dowladnimo iyo karaamo iyo horumar inaysan siinayn. waxa kaliya aan ku gaari karno waxay tahay inaan ka gudubno qabiilka iyo qabyaaladda, aan u shaqeyno qarannimo, aan u shaqeyno. taas weeye waxaan kula tartami karno caalamka. ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo. insha Allah waxaan sugaynaa wiigii xorriyadda oo nagu soo aadan bisha July 1 oo ah isu tagii koonfur iyo waqooyi. waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.